gudoomiye ku-xigeenka Wajeer Axmed Maxamed ayaa ka mid ahaa madaxda qaranka ee ka qayb galay munaasabadda daafurka barnaamijka horumarinta caafimaadka bulshada oo madaxweyne William Ruto uu daafuray Isniinta. Hindisaha ayaa ujeedadiisu tahay in shacabka Kenya ay helaan daryeel caafimaad oo tayo leh oo xaafadooyinka deegaanka dalka laga heli doono. Xafladda ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxweyne ku-xigeenka dalka Rigathi Gachagua, madaxa golaha wasiirada Musalia Mudavadi, gudoomiyaha golaha gabanarada dalka Anne Waiguru, gabanaha Nairobi Johnson Sakaja, gudoomiyayaal iyo madax kale. Barasaab ku-xigeenka Wajeer Axmed Maxamed ayaa sheegay in nidaamka daryeelka caafimaadka ee dalka hadda ujeedadiisu tahay in xoogga la saaro daaweynta oo wax badan ka dhimi doonto adeegyada ka hortagga iyo horumarinta caafimaadka. Kani waa barnaamij iskaashi oo ka dhexeeya dowladda qaranka iyo tan gobolada si looga faa'iideysto 100,000 ee shaqaale ee wata qalabyo, telefoonada casriga iyo gunooyinka si kor loogu qaado daryeelka caafimaadka ee heer qoys, ayuu yiri Mudane Axmed. Shaqaalaha si buuxda u tababaran iyo dhiirigeliyaasha caafimaadka bulshada ee guryaha gaari doono ayaa waxaa hagi doona khabiiro ka tirsan shaqaalaha daryeelka caafimaadka. Shaqaalahan caafimaadka waxay damaanad qaadeen maamulka adeeg caafimaad oo tayo leh, kaas oo la gaarsiin doono malaayiin qof oo guryahooda jooga. Daafurka mashruucan ee 100,000 ee qof ee la shaqeyn doono khabiirada caafimaadka bulshada, kuwaas oo ka howlgali doona 47 dowlad goboleed ee dalka, ayaa waxay maanta ka dhacday beerta Uhuru Park ee ismaamulka Nairobi. Gudoomiye ku-xigeenka Wajeer Axmed Maxamed ayaa sheegay in shaqaalaysiinta khabiiro si buuxda u tababaran iyo dhiirigeliyaasha caafimaadka bulshada ka soo jeeda ay sida laga rabo ay u hagaan khubarada shaqaalaha daryeelka caafimaadka. Waxa uu sheegay inay damaanad qaadi doonaan adeeg caafimaad oo tayo leh, taasoo la gaarsiin doono malaayiin qof oo jooga guryahooda. Madaxweyne William Ruto ayaa dhankiisa sheegay in hindisahan uu sii kordhin doono daboolidda caafimaadka caalamiga ee dalka. Kenyaanka hadda waxaa loogu adeegi doonaa guryahooda iyadoo la raacayo habdhaqanka isbeddelka ah ee aan ugu adeegayno dadka, ayuu yiri. Waxa uu xusay in xukuumadda qaranka ay shaqaalaha siin doonto lacago gunno ah. Shaqaalaha caafimaadka ayaa mid kasta waxaa lagu soo oogayaa u adeegidda 100 guri. Waxaa la siin doonaa qalabka asaasiga ee baaritaanka caafimaadka qoyska. Waxay sidoo kale heli doonaan telefoonada casriga, kuwaas oo ka caawin doono gudbinta macluumaadka, tilmaamaha iyo talada, ayuu yiri Dr. William Ruto. Madaxweyne Ruto ayaa sharaxay in dowladda ay shaqaalaysiin doonto ilaa 20,000 oo shaqaale oo dhanka caafimaadka ah si ay u gaarsiiso saamiga shaqaalaha caafimaadka ee tirada dalka ee laga rabo 23 dhakhtarba inay u adeegaan 10,000 oo qof.